madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka qayb galay xafladda qalin jabinta ee dufcadda 19aad ee jaamacadda Camuud oo maanta ka dhacday xarunta jaamacaddaasi ee magaalada Boorama. Warbixin arintaasi la xiriirta Axmed Buudi ayaa ka soo diray mar kale Boorama. madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo oo maanta soo gaadhay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa ay ka qayb galeen xafladda qalin jabinta dufcadda 19aad ee jaamacadda Camuud. munaasabadani oo ahayd munaasabad si arsara loo soo agaasimay ayaa ka qabsoontay howlka weyn ee jaamacadda Camuud iyadoona ay halkaasi ay ku qalin jabinayeen in ka badan 900 oo arday oo ka kala baxday kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Camuud. ugu horreyn waxa isagu halkaasi ka hadlay faafahin dheeriyana ka bixiyay ardayda maanta ka qalin jabinaysa dufcadda 19aad ee jaamacadda Camuud. gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Saleebaan Axmed Guleed ayaa waxa uu yiri waxay jaamacadda Camuud saaka marag furaysaa in shahaadooyinka qaadateen ee la xidhiidha takhasusiyadiina iyo heerar sharciya in aasifa sharciya u haysataan oo leedku wareejiyo saaka ka qalin jabiseen jaamacadda Camuud ayaanu idin marag furaynaa. maanta waxa garanaysaan sida cilmiga u baadhaan runtii beenta kala soocin kartaan hays dhiganina noloshiina qorshaysta ama shaqo markaad heshaan iyo haddaad waxbarasho ku dhisataanba noloshiina dib u qoraysa. qodobka ugu dambeeya maanta laga bilaabo markaad ka baxdaan halkan danjirayaasha Camuud University. dhanka kale mas'uuliyiin kale oo halkaasi ka hadlay ayaa iyaguna hambalyo waxay u soo jeediyeen ardayda maanta ka qalin jabinaysa jaamacadda Camuud waxayna sheegeen marka hore u hambalyeynaya ardayda qalin jabinaysa oo aan leeyahay ilaahay ha idinka dhigo qalin jabinta iyo shahaadada qaadanaysaan mid khayr qabta oo aan naftiina iyo qoyskiina iyo qarankaba wax kaga bedeshaan oo xagga wanaagsan ugu bedeshaan. marka waxaan idin leeyahay hambalyo. ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu hambaliyay ardayda maanta ka qalin jabinaysa jaamacadda Camuud iyadoo maanta ay tahay dufcadda 19aad ee jaamacaddaasi oo ay ka baxayaan in ka badan 900 oo arday oo ka kala baxday kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Camuud. waxaan si gaar ah u hambaliyay odayga jaamacadda Saleebaan oo 60 sano wax soo barayay oo maanta farxad u tahay annaga yar xishoonay inaan macallinkayga ka hor hadlo isagana ay sharaf u tahay in ardaydiisa madaxweynaha noqdo. dad badan baa u qaba tacliinta marka dhameeya in lacag lagu helo. tacliintu taa weyn ka weyn tahay waa maskaxdii bini'aadmiga la koriyay maskaxda bini'aadmiga oo dhan meel kasta joogay wuxuu ka sugayaa inay wax u tarto. waxa la yahaad ku intifaacayna internetkaas ugu dambeeyay haysataan da'diinaasa oo jaamacadaha ugu qalin jabinayay oo sidee maskaxda ku dhashay oo aan naga fariidsanayn oo naga aabba wanaagsaneyn ayaa keenay insha Allah inaguna qaar ka waaweyn kooni doonaa waa inay Muhammadeeda lahaana. haddii dhakhtarkii la helay oo xisaabiye la helay oo injineerkii la helay oo IT-gii la helay inta ayaa isku xidha. bulshadu waxay u baahan tahay hogaamintuna waxay ka timaadaa waa talada. afafka ajnabiga hada talada waxay noqotay siyaasadda adduunka oo dhan mashaakilka yimaada ee mujtamacooda ku yimaada waxa xalliya jaamacadaha. waxa laga sugayaa aqoontii inaynu Soomaaliland oo dhan gaarsiino oo la inaga arko. Axmed Muuse Xasan Axmed Buuri wararka RTN TV Boorama.